Soomaaliya waa dal dadkiisa 75% yihiin dhalinyaro. Dhalinyaradaas waxay wajahaan caqabado badan oo nololeed oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta. Shaqo la'aanta waddanka ka jirta 60% waxa ay haysataa dhalinyarada. Waxay shaqo la'aantaas dhalinyarada dhaxalsiisay inay tahriibaan, qaar kalena ay qaataan doorashooyin nololeed oo qaldan. Farsamada gacanta waa waxa kaliya ay wadamo badan ay ku hormareen, dhalinyaraduna ay ka helaan shaqo abuur, sida dalalka Germany iyo Japan. waana xirfad qofkii barta oo muddo kooban ku samayn karo shaqo kuna maareyn karo noloshiisa. Dugsiga farsamada Bruge waa dugsi lagu barto farsamooyin iyo xirfado kala duwan, taasoo dhalinta laga saacido inay wax bartaan si loo yareeyo shaqo yarida dhalinta Soomaaliyeed haysata, laguna soo daro suuqa shaqada. Dhalinta ka soo baxday dugsiga farsamada Bruge waxaa dib looga howlgeliyaa shirkadda Bruge, qaar kalena waxa ay shaqooyin ka helaan shirkadaha iyo xarumaha kale ee dalka, ayagoo laga faa'iideysto aqoontii ay ka soo heleen dugsiga Bruge. Farsamada gacanta waa meesha kaliya ee dalalka dunidu ay ku kala hormareen. Dalalka dunida waxay ku kala hormareen sidii ay u soo saari lahaayeen shaqaale tayo leh iyo dad leh wax soo saar farsamo gacmeed ah. Dugsiga Bruge ayaana ugu talagalay in la helo dad badan oo xirfad leh kuwaasi oo ka qayb qaata yareynta shaqo yarida iyo sare u qaadidda dakhliga qoysaska Soomaaliyeed.